waxaan rabaa inaan soo dhigo boost ka hadlaya Soomaaliya iyo Somaliland waxaan rabaa inaan ogaado labadaas wadan ee dariska ah mid ka cod badan ila soco waxaan ku guriyooday amma rajinaya rahmati ilaahayo nabado gurati waxaan ku guriyooday amma rajinaya rahmati ilaahayo nabado gurati yes Soomaaliya loo socodiyay Soomaaliya hal cod yes mar labaad Soomaaliya laba cod Mahad Axmed Cali Mahad Sheeno Soomaaliya yes saddex cod Soomaaliya saddex cod Ronyo Soomaaliya waa socotaya Somaliland wax cod ma leh yes mar afraad Soomaaliya yes mar shanaad Soomaaliya yes Xasan maxaa la faraxsanahay waxa soo dhigay boost Soomaaliya iyo Somaliland mid ocday Soomaaliya shan qof oo soo codaysa isla markii hada Somaliland wali waxa ay leedahay Soomaaliya iyo Somaliland waa laba wadan ha Soomaaliya iyo Somaliland laba dawlad kale yimaca ayagana Ingiriiska gumeystay anagana Talyaaniga gumeystay ma taqaanaa macnaha Ingiriiska iyo Talyaaniga oo qoyiga koonfurta ugu meystay ma taqaanaa macnaha ma aqaan macnaha hada bay dhigayso 1884 markii uu gumeysigii reer galbeedka shirkii Berlin ee dalka Jarmalka lagu qabtay lagu go'aansaday in Afrika lagu kala qaybiyo Soomaaliya waxa loo go'aamiyay in loo qaybiyo laba qaybood Ingiriiska oo gumeysanaya waqooyiga iyo koonfur oo Talyaaniga gumeysanaya macnaha Ingiriiska oo u gumeystay waqooyiga ma fahansanti macnaha uu u gumeystay waxa ay tahay waagaas Ingiriiska waxa uu ku sugnaa dhulkan Carbeed ee Yemen wuxuuna u arkayay dekada Berbera in hilibka xoolaha iyo raashinka oo uga soo dago halkaas oo u arkayeen inay tahay meel istiraatiiji ah macnaha Boston ma garan kartaa dhibaatada uu keenay waxa uu kala fogeynaa ummad Soomaaliyeed wiil iyo abtigiis hooyo iyo wiilkeeda wiil iyo walaalkii daqiiqad yar ayaad ku soo qortay boostigaas dabadeed bartaada soo dhigtay adigoo halaas raadinayo comment like iyo share balse maadan fiirinin dhibaatada uu kala fikra boostiga yar aad soo dhigtay hadaba Soomaaliya si fudud kuma kala qaybsamayso waliga ma maqashay doona badda ku gudunta waxa ku jiray 10 Ethiopiana 10 Somaliland 10 Soomaaliya 5 Djibouti waliga ma maqashay waliga ma maqlin doona badda ku gudunta 10 Soomaaliya 10 Somaliland 5 Ethiopiana waxa ku jiray waliga ma maqlin waxaan aaminsanahay yaraanteedii ilaa iyo hadda in Soomaaliya iyo Somaliland ay yihiin laba wadan sida darteeda waxa la igu soo barbaariyay in 1884 Soomaaliya la qaybiyay kadibna Ingiriiska uu gumeystay Somaliland Talyaanigana uu gumeystay koonfurta 60kii ay midoobeen sida darteeda wixii 60kii ka dambeeyay uu dalkii burburay Somaliland اعترافkeeda ee la noqotay marka waligeey waxaan aaminsanahay in laba dal kale yihiin balse maanta wax laga bilaabo waxaan aaminsanaan doonaa ama aaminsanahay saacan wax laga bilaabo in Soomaaliya ay hal tahay waligeedna aan laga qaybinayn waligeedna ay kala go'aynin muuqaalkani waxaan u sameeynay dhalinyarada ama dadka Facebook-da soo dhigaya Soomaaliya iyo Somaliland danta aan ka leenahay waxay tahay inaan aragno Soomaali oo isu duuban dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka hufan
qabyaaladda ballanteenu waa Soomaaliya oo mid ah